السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعند وذيل كسر دوادا ورك تلفزيون كسمنيوز تي في ورك واحد ينسو جدينيا. أنا جو حسن كاهية ورك واحد ينكجا إيمانا يا حرمت التلفزيون كوكولة هاي مقالة مقدسة قضبضة ورك عتقدا وندونتنا وحقيبك. دولة أمريكا كاهية ورك صارتي دقيمة لشيء إن يكدلين حجامية حجين كي داعش الصومالية. مدحينها دولة فدرال كصومالية هي ku amray laamaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya in talaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan askar lagu eedeeyay in dilal ay ka geysteen magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. faahfaahinno ayaa ka soo baxaya qarax miino iyo toogasho ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho. xuska maalinta 18 May ee Somaliland ayaa la tilmaamay in sanadkan ay ku soo beegmayso bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan idin haynaa warbixino iyo wareysiyo arrimahaas la xiriira. telefishinka Somnews ayaa warbixin ka diyaariyay xuska munaasabadaha 18 May sida loogu arko guud ahaan deegaanada Somaliland. midowga Afrika ayaa 15 maalmood gudahood waxa uu u qabtay militariga Suudaan in xukunka dalkaasi ay ku wareejiyaan mid ka mid ah xaasaskii madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalka Suudaan ayaa dawladda koonfurta Suudaan waxay u diiday inay ka dulaan garoonka magaalada Juba ee caasimadda u ah koonfurta Suudaan. qodobadaas iyo qodobo kale oo ay qayb ka yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani ee Somaliland oo ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ay sheegeen inay ka taagan yihiin deegaanada iyo degmooyin ka tirsan Somaliland ayaa warka ku daawan doontaan u diyaar garooba.